17 أكتوبر ومانينتا الشهداء SNM waxaana inta badan laga xusaa guud ahaan Soomaaliland magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa ay kamid tahay goobaha sida weyn looga qadariyo maalintaasi xusay soo qaban qaabiyeen ururka Sooyaal ee Jimciyadda SNM ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada Burco maamulka degmada Burco mas'uuliyiinta Jimciyadda SNM ee Sooyaal mujaahidiin iyo marti sharaf kale waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Jimciyadda SNM ee Sooyaal isagoona ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay maalintani ballaadhan isagoo intaasi raaciyay inay maalintani tahay maalintii la ogaaday in la iska caabin karo isla markaana la iska celin karo ciidamadii rajiimkii Maxamed Siyaad Barre maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad iyo ku-xigeenkiisa oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna dhankooda hadallo guubaabay iyo dhiirigelin oo halkaasi uga soo jeediyay insha Allah ta'ala maalintan waa maalintii madaxweynaha la weydiiyay la yiri lixda hadii uu ka dhintay maxaa yeelaysaa BBC weydiisay weeyaan madaxweynuhu wuxuu ku jawaabay SNM wada lixle marka muhiimaddu waxa weeyaan waa maalintii dawladdii Maxamed Siyaad Barre la ogaaday la iska celin karo burcaduuray waxay waxyaabaha taariikhiga ee SNM runtii qalbiyada dadkii bariga joogay iyo kuwii soo maray ku taariikhaysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala saaka laba xaaloon baynu inaga inagu waajiba inaynu u ducayno qaar kamid ah mujaahidiintii dagaalka waqtigaasi ka qayb qaadatay ayaa dhankooda sheegay inay maalintani tahay maalin si weyn loo xushmeeyo waxay ku beegantahay sanad guuradii 29 ee ka soo wareegtay xuskii maalintii shuhadada ee ururka SNM oo ahaa 1947 Oktoobar waa maalintii ay ciidankii xoreynta ee ururka SNM iyo xoogadii ugu ballaadnaa ee maalinta ciidankii faqash ay duulanka ku qaadeen cutubyo ka tirsan ciidankii xoreynta ee ururka SNM oo markaa ku sugnaa magaalada Burcaduur waa maalintii ay guul daraysatay awoodii iyo laxaadkii ciidankii faqash waa maalintii ay fashilantay awoodii iyo gaadiidkii gaashaana ee ciidankii faqash u adeegsan jiray xasuuqa tacadiga xuskii maalintii shuhadada ee ururka SNM oo ahaa 1947 Oktoobar guulihiyo ciidaweeye galowga jiftiday gondololada ay ogtahay fiinta gowlihi gondololada ay ogtahay fiinta gowlihi adoo shalay gaban foorslay saaran guradiisa oo gabi dhacayo hanfiga la isu geli waayay oo sida ilaa gabar lahaye gaashay iyo maalo sida adeed alcaar loo gurado goob la wada keenay marka boqol gabdhood adigoo ku shawcaya dhabarkiyo ulaadhe gaba anaa kugu dhigay adaanay dhibay buur geelo loogu heesaa xasan sheekh maxamuud baa tuureedin ma iga hadlay wuxuu yiri xasaasiyad baa kicisay wadankan milyan ku dhintay milyan ku naafaro milyan ku agoomameen milyan ku tahriibeen milyan ku badul noqday milyan ku waasheen milyan ku baarmayska hii xasaasiyadina ma kicina والله سيدي weerarkii Westgate iyo mataana ayuu iyagu xadhagu ku qarxay hadana ka bixin badayna si kasaba ahaatee 17 Oktoobar sanadii 1984 magaalada Burcaduur waxaa ka dhacay dagaal aad u xoog badan taasoo ay ku nafwaayeen in ka badan 34 mujaahid goobtaasina lagu laayay isla markaana dhaawac xoog leh loo geystay ciidamadii Kirgidalskii Maxamed Siyaad Barre taasina waxay sababteeda keentay inay Soomaaliland maanta soo gaadho heerkan ay maanta taagan tahay شافعي محمد إبراهيم ورك الصومالي ده مجرد برعو